Markii hore waxaa la garaacayay warshadaha sifaynta batroolka, hadda waxaa la garaacayaa kuwa biyaha dhanaan maceeya iyo korontada ee Kuwait. Taasi waxay walwal ku abuurtay dadka, waayo tan iyo markii uu dagaalka bilowday dalalka Khaliijka waxaa dhibaato ay kasoo gaartay aargoosiga Iran. Qaybtan ka mid ah ee Bariga Dhexe waa dhul oomana ah, waxa ayna ku tiirsan tahay korontada iyo biyaha badda ee macaan, taasoo ah 90% biyaha la cabo. Haddii taa la waayo, Khaliijka waxa uu noqonayaa meel aan nolol ka jirin, waana walwalka ugu weyn ee haysta hogaamiyayaasha gobolka. Muddo dheer waxa ay dalalkaas yaryar ku noolaayeen inaysan qayb ka ahayn dagaalada ka jira qaybo kale oo Bariga Dhexe ka tirsan, laakiin hadda waxaa arrintaasi isku beddeshay dagaalka Iran ay ku qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil, taasoo sababtay in laga aargoosado dalalka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuusan joojin doonin weerarada ka dhanka ah Iran. Trump ayaa u muuqday inuusan dheg jalaq u siinaynin cadaadiska uga imaanaya dhinacyada kala duwan oo ah inuu joojiyo dagaalka ka dhanka ah Iran. Digniin ayaa ka timid saacado yar kadib markii tiro ka mid ah khubarada sharciga caalamiga ay soo saareen warqad ay kaga digayaan xadgudubyada halista ah oo ka dhan ah sharciga oo la sheegay inay geysteen Mareykanka, Israa'iil iyo Iran. Khubaradu waxa ay walaac ka muujiyeen hadallada hanjabaadda ah ee Mr. Trump inta uu socday ololaha. Madaxweynaha ayaa mar kale ku hanjabay inuu weerari doono kaabayaasha dhaqaalaha Iran sida burburinta buundooyinka iyo xarumaha korontada, kuwaas oo loo arki karo dambiyo dagaal. Khamiistii, Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay weerareen buundo dhismo oo ka socoto, iyadoo xarunta kale ee taariikhiga ah oo soo saarta daawooyinka iyadana la weeraray. Saacado ka hor, Trump ayaa muuqaal laga duubay weerarkii buundada soo dhigay baraha bulshada, isaga oo ku qoray waa waqtigii ay Iran heshiis gaari lahayd ka hor inta aysan goor tahay. Dhanka kale, labada warshadood ee birta ugu waaweyn ee Iran ayaa la xiray. Warshadahan ayaa albaabada loo laabay kadib markii dhowr jeer uu duqeymo cirka ah ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Israa'iil, sida ay sheegtay shirkadda gacanta ku haysa. Qiyaasteena bilowga ah waxa ay tahay in dib u bilaabista cutubyadan ay qaadan doonto ugu yaraan 6 bilood ilaa 1 sano, ayuu yiri afhayeen u hadlay oo ah ku-xigeenka madaxa howlgallada ee shirkadda birta ee Khuzestan ee Koonfur Galbeed Iran, iyada oo ay soo xigatay warbaahinta Iran. Digniinta ayaa laga maqlay Bariga Dhexe habeennimadii xalay. Waa tan warbixin kooban oo ku saabsan meelaha ilaa hadda laga soo wariyay weeraro, iyada oo Iran, Mareykanka iyo Israa'iil ay sii wadaan inay isdhaafsadaan rasaas maalintii 35aad ee dagaalka. Lubnaan, ciidanka difaaca Israa'iil ee loo yaqaano IDF ayaa ku warramay inay dhammaystireen weeraro bartilmaameedsan oo ka dhacay koonfurta Lubnaan, kaas oo ay sheegeen inay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsan Xisbullah. Waxa ayna sidoo kale soo saartay amarro cusub oo lagu daadguraynayo dadka degan xaafadaha koonfurta ee Beirut. Iran, dadka ku nool Tehran ayaa BBC-da ugu warramay xaaladooda kadib markii buundo ku dhow caasimadda la duqeeyay Khamiistii. Israa'iil, ciidanka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in gantaalo laga soo riday Iran habeennimadii xalay ay haleeleen goobo ka mid ah magaalada Tel Aviv, halka afhayeenka militariga ee kooxda Xuutiyiinta ay taageerto Iran ee Yemen ay sheegtay in kooxda ay gantaalo balaastig ah ku tuurtay bartilmaameedyada Israa'iil. Kuwait, adeegyada gurmadka degdega ah ayaa ku howlan dabka kacay warshad saliidda lagu sifeeyo oo ku taala Kuwait kadib markii ay ku dhaceen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. Si gaar ah, warshadda biyaha lagu sifeeyo ayaa la weeraray. Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in difaaceeda cirka ah uu ku lug leeyahay weeraro gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka imaanaya Iran. Sacuudi Carabiya, warshadda difaaca ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay qabatay oo ay burburisay dhowr diyaaradood oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maalinimadii Jimcaha oo maanta ahayd. Bahrain waxa ay dadka weydiisatay inay hoy ka dhigtaan meelaha ammaanka ah kadib markii seeriga digniinta la maqlay. Safiirkii hore ee Faransiiska u fadhiyay Mareykanka Gad Aoud ayaa telefishinka Faransiiska ee LCI u sheegay Trump waxa uu qodayaa qabrigiisa. Mareykanka waxa uu si toos ah ugu socdaa, ayuu yiri, guul darro, taasna waa mid cad. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa mareegtay khiyaanadii ewelba lagu yaqaanay. Wargeyska iyo Dacood Ahronoos ayaa ku warramay
in Israa'iil ay bilowday inay ku qanciso Mareykanka sidii gudaha Iran loogu fulin lahaa howlgallo lagu burburinayo kaabayaasha tamarta Iran, kuwaas oo ay sheegtay in lagu gaarayo burbur nidaamka iyo kacdoon dadweyne. Xogayaha dagaalka ee Mareykanka ayaa u bandhigay taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka General Red George in uu is-casilay, iyadoo la sheegay in uu doonayo in xilka loo magacaabo qof daacad u ah Trump oo fulin kara. Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda Mareykanka uu leeyahay ee lagu magacaabo F-15E in maanta gantaal ay la haleeleen ciidanka cirka ee Iran kadib markii ay isku dayday inay duqeymo ka fuliso gudaha Iran. Ciidanka cirka ee Iran ayaa waxa ay baahiyeen diyaaraddan Mareykanka uu leeyahay ee lagu magacaabo F-15E inay ku soo dhacday gudaha Tehran kadib markii ay gantaal ku dhufteen. Waxyaabaha la yaab kale ee ka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaraddan duuliyaashii waday ay baarashuudkooda la baxsadeen iyagoo ku dhuumaalaysanaya kaymaha ku yaala gudaha Iran. Iyagana waxaa baaday goob weyn ku haya ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran iyo kuwa cirka ee Iran. Wixii ka soo baxa waxaan iskula wadaagi doonaa qaybaheena dambe ee wararka.